balwadda internetka waa la socotiin maanta meesha ay marayso social media facebooka imoga whatsappka dhalinyaro dhan baa ku jirta waa ogtihiin maxaa dhacay marka qoysaskii dhisan oo wada dhaqmaya oo gurigooda dugan ayaa qofal facebook ku jira oo ila sheekaysanaya oo messenger lagu wada jira oo whatsapp lagu wada jira okay ha lagu jiro qaabka loogu jiro iyo habka loo communication gareynayo wuxuu abuuray in la isku dhaco laguna kala tago guriga sababtoo waxaa dhacaysa waqtiyada uu ninka iyo naagtiisu wada joogaan Facebook in la wada isticmaala waa sax iyadoo isku meel la joogo laga sheekaysanayo loo midaysan yahay laakiin markii la seexdo oo hurdada la galo haddii inantu inta kacda Facebook la fariisto qolkii chiefka ama qol kale la gasho maxaad u maranaysaa inay ka dhalanayso oo waqtigii hurdada ay ku qaadato Facebook iyo soo jeed muxuu dareemayaa ninkii gogasha looga tegay waxaan filayaa arrintaa inaad dareemi kartaan culeyskeeda sidaas si lamid ah waqtiyada la shaqaynayo oo shaqada guriga ay hooyadu joogto oo ninku uu shaqada aado haddii uu internetka soo galo oo arka adigii oo kugu jira khadka oo ma ka baxaynba oo gurigii shaqadiisii dayacay oo ilmihii iskoolkii iyo waxbarashadii iyo gurigaagiiba aad ku baabi'isay waqtigaas ka shaqaysanaya inaad Facebook ku jirto ama messenger aad ku sheekaysato arrintaas waxay keenaysaa shakiguna wuxuu keenayaa guriga inuu burburo waxaan aragnay rag badan oo maxaan ku idhaahdaa biidni illaahi tacaala inta magacii bedeshay kaar cusub qaatay reerkiisii intuu ka shakeeyey haddana kusoo galay asagoo magac kala wata oo gabadhii oo Facebook ku jirta oo fadhiga tagtay waqtiga la seexan lahaa intuu magac kala qaatay iyo lambar cusub oo halkaa ka soo galay oo halkaa kala hadlaya asoo chief ku jira oo la hadlaya xaaskiisa oo fadhiga qolka fadhida waa qisadii ugu yaabka badan dhacday ahay sababtoo ah gabadhan markay odageedu seexday Facebook gelaysaa maxay u gelaysaa waa yaab haddii markii odagu seexda iyadoo ay war u baahan tahay iyo cid kale yaa la sheekaysanaysaa yaa ka mudan odageeda oo ninkeeda guriga jooga yaa ka mudan inay u sheekayso waqtiga ku bixinaysa Facebook iyo imo may odageeda geliso may agseexato may u sheekayso waqtiga shaqada lagu jiro oo guriga lagu dhex jiro oo maxaan ku yiraahdaa isha shaqadana waxaa la rabaa in la joojiyo Facebook iyo waxyaabaha social media ah ee faa'iidada badan la runtii faa'iido badan baan ku qabnaa in dhinaca fiican looga faa'iideysto oo waqtigaas inta la iska xanimo shaqada guriga la qabsado hawsha ku taala qabsatid hadhow markaad dhamaysato 10 daqiiqo rubi saac aad ku jirtid it's enough laakiin hadaa shaqo ka dhigatid oo waagu markuu bariyay markuu qoraxdu dhacdo Facebook ku jirtid 24 hours odagaagu uu fahmo inaad online tahay hatta ma shaqaale Facebook baa tahay mise shaqaale imo baa tahay bas qof guri joogo hooyaha ilmo dhaqaaleynayso oo nin ka taxadarayso mas'uuliyad reer saaran yahay kiisaska aan arkay ee uu kala diray social media wax la xisaabin kara ma sida ay isugu dhaceenna waa qaabab kala duwan waxaana ugu badan shaki ka dhashay waqtiga gabadhu ay ku jirto messengerka ama Facebook sababtoo ninkan intuu guriga joogo wuxuu rabaa inuu gabadhiisa xaaskiisa la joogo wuxuu rabaa inay u heliso wuxuu rabaa inuu u sheekeeyo hadduu asaga sidoo kaleeto waqtiga gabadhu ay u guriga yimaado inta meel gaar ah gala Facebook iyo inta maanta ku jiro gabadhii inay u baahan tahay inay asaga u heliso oo iyada ka fogaanayana gabadhaas waa shaki baa galaya why kala qumanta inta guriga ka timaadid oo xaaskaaga u timaadid oo aad qabaysatid inta fadhiga gashid ama meel gaar ah fariisid maanta Facebook ku jirta iyadana gaar ay ku sugayso ma wax saxan ba soo aqli saliim ma ahan waxyaabaha qoysaskeena burburiyay kamid tahay social media waxa loo baahan yahay in social media waa faa'iido badan yahay waana khasaare badan yahay waa faa'iido badan yahay oo maanta waxyaabaha maanta dadka isku xiray oo aqoon badan laga faa'iideystay oo dunida isu keenay ay isagu noqday waana khasaare badan yahay oo afkaas sakiin buu ka noqday oo dhinaca khaldan marka aad ka fahamto ama waxyaabaha la soo dhigayo oo dhaqan xumada ah ha noqoto oo waqti la geliyo ama adigoo ku mashquula waxaan maslaxadaada ahayn oo Facebook ha noqotee qoys burbur bay noo keeneen qoys burburkaas noo yimidna waxaan rabnaa in aan joojino intii hore nooga ekaado inuusan social media qoysaska naga burburinin inuusan shaki abuurin
in wiilka iyo gabadha isqaba markay Facebook ku jiraan ama social media ay isla fariistaan ay isku meel fariistaan ay share gareeyaan ama ay wadaagaan waxa ay ku jiraan maxaa ka qarsanaysaa ninkaaga marka qolka fadhiga fariisanaysa wuxuu saadi ka qarsanayaa markuu asoo gaar u baxayo waxa loo baahan yahay in qofka kale kalsoonidiisa ilaaliyo shaqada guriga markii la isu yimaado wehelka labadiina idin ka dhaxeeya waa inaad ilaalisaan oo isku heshataan waxa ka hadlaysaan haddaa rabtaan midba gaar ah oo hadla laakiin waa inaad isla fadhidaan oo wax isweydiinaysaan oo sheeko idiin socotaa oo warkuus idinka xirmin laakiin marka anigu la sii jeesto Facebook oo dhabarka u duwa xaaskaygii ama iyadu waqtiga anigu aan nasanayay ay iyadu meel gaar ah ku sheekaysato arrintaas guriga badan ma naga burburisay aan iska dayno oo aan wadaagno waxaan ka wada hadlayno aan ilaashano guriyaheena aan iska ilaalino social media inuu guriyahanaga naga burburiyo wax gurigeena ka qiimo badan oo helayna ma jirto